dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay xaqiijisay tirada rasmiga ah ee dadkii ku dhintay qaraxii halkan ka dhacay waa isgoyska Zoobe oo dowladdu iminka ay u bixisay 14 Oktoobar wasiirada amniga iyo warfaafinta oo si wada jir ah shir jaraa'id ugu qabtay goobta ay wax ka dhaceen caawa waxa ay sheegeen in tirada dhimashadu inta la xaqiijiyay ay tahay 358 qof waxa dheeraad ah oo aan nolol iyo dhaawac midna lagu haynin dad gaaraya 56 qof taa oo ka dhigan in tirada ay kor u kici karto dowladda federaalka Soomaaliya oo garabsanaysa dhalinyarada samafalayaasha ah ee u istaagay caawinta shacabkooda waxay idinla wadaagayaan in howlgalkii wajigiisii koowaad soo dhamaaday isla markaasna ay idin sheegayso wixii halkaas ka dhacay inay tiro ahaan ay yihiin marka la isu geeyo dhaawac iyo dhimashaba 642 kuwaasi oo kala noqonaya sidan waxa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen 358 ilaa hadda waxa nolol iyo geeri lagu laayahay dad gaaray 56 guud ahaan dhaawac isbitaalada la seexiyay waxay gaarayeen 228 waxaase dibadda caafimaad ahaan loogu qaaday 122 oo la kala geeyay dalalka Turkiga, Suudaan iyo Kenya waxa isbitaalada Muqdisho markii la daaweeyay ka baxay dad iyagana gaaray 99 qof oo markii la daaweeyay halka ay caawa jiifaan ilaa 7 qof oo dhaawacyada ah sidoo kale wasiirka amniga oo ka hadlay goobta waxa uu sheegay in ay jiraan dad loo soo xiray falkii halkan ka dhacay markii ugu horeysay ay dawladdu arrinkaas soo hadal qaadaysaa waxa uu sheegay in faahfaahinta ay maalmaha soo socdo soo saari doonaan waxa kaloo jirta ayagana sidoo kale hay'adaha amniga ee maalmahan ka shaqeynayeen in dad loo xiray dad u xiran yihiin oo xooga xog aan hayno marka ila Ilaahay iraado xogtan mar dhow aan la sheer gareyn doonaa waan idin soo gudbin doonaa haddii Ilaahay iraado waxa la sugayay in faahfaahin intan ka badan ay dawladda soo saarto oo ay kaga hadasho wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen waxa dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay qaraxii halkan ka dhacay in xarakada al-shabaab ay fulisay ama ay ka dambeysay balse al-shabaab arrinka ma aanay sheegan